وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا أو بحلقة وراب شو واجي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدلكي وانسلامي أرضيدا قارحان فصلة فوونكا وحنمانتا إيجينا قيبتا جرامركا وحنيجينا حلا punctuation marks علامات الترقيم بعربي قال لقول هذا وحوي وعلاماتها قرالكا punctuation marks علاماتها قرالكا صفحة تضباطن يصدح تضباطن يصدح بيجكا punctuation marks هذا أما punctuation كعلاماتها قرالكا is used to create sense waxa loo isticmaalaa inay sameeyaan marka qoraalka la qorayo qoraalka ay u sameeyaan macno ay u sameeyaan meesha joogsiga ah iyo meesha lagu hakanayo meesha tilmaamaysa weydiin meesha tilmaamaysa calaamadaha la yaabka meesha tilmaamaysa sharaxaad meesha tilmaamaysa hadal inuu sii soconayo clarity waxay sameeyaan sidoo kale waxbay cadeeyaan oo aad u sifeeyaan ay cadeeyaan hadalka ay cadeeyaan ay sifeeyaan waxay sameeyaan sidoo kale waxa la yiraahdo stress waa hakinta hadalka in la hakiyo dhexdiisa oo kale ayaa loo isticmaalaa jumladaha dhexdooda ayay kala googooyaan ay kala hakiyaan we use punctuation hadaba punctuation section qaybtan calaamadaha qoraalka waxaan u isticmaalnaa to learn qofku inuu barto how to make your English clearer sida uu noqon lahayd ingiriisidaadu ama luqadaadu mid cad and better organized macnaha well organized mid si fiican u abaabulan si fiican u agaasiman u abaabulan ayay ka dhigaysaa waxaan u horeysiinaa calaamada la yiraahdo ama astaanta la yiraahdo full stop ama waxa la macnaa point ama period waa joogsigii weeye we use the period waxaan u isticmaalnaa period baa la yiraahdaa waxa kaloo la yiraahdaa full stop waxa kaloo la yiraahdaa maxay point saddexda calaamadood baa la yiraahdaa period iyo full stop iyo point intu waa joogsi to mark inay calaamadiso at the end of a sentence dhamaadka jumladu markay dhamaato ayaa la dhigayaa periodka ama full stopka ama pointka macnaha joogsiga which is not a question waa marka aanay weedho ahayn weydiin ama exclamation la yaab marka aanay weydiin ahayn ama la yaab ahayn labada xaaladood ayaa la dhigayaa examples tusaalayaal Hargeysa is the capital of Somaliland Hargeysa waa caasimadda Somaliland imaka halka Somaliland halkii baa joogsaday barta waxaan dhignay joogsi baynu dhignay she is a teacher waa macallimad halka dhamaadka teacher baynu dhignay marka joogsigii he drives slowly si qoonyara ayuu gaariga u gaxeeyaa halkaas ayaynu dhignay maxay joogsigii okay waxaan isla garanay marka full stopka in la dhigayo dhamaadka jumlada aan ahayn weydiin iyo la yaab to indicate sidoo kale waxay tilmaantaa waxa loo yaqaan abbreviation ama acronym macnaha soo gaabsi marka waxyaabo la soo gaabsado kale ayaa la isticmaalaya I'll be between 6 am and 7 pm waxaan iman doonaa inta u dhaxaysa 6 am ama 7 pm halkaas waxa la dhigay marka eriyada la soo gaabsaday dhexdooda ayaa la dhigayaa 6 am iyo pm full stop after a single word sidoo kale waxa la dhigayaa erey kelidii ah marka ayuu daba dhacaya salaano kale qof baa goodbye joogsi baa la dhigayaa goodbye ama hello
oo kale ayaa la dhigayaa joogsi dabadii comma ayaynu eegaynaa commada waa hakad baa la yidhaahdaa comma is used commada waxaa loo isticmaalaa to separate in lagu kala sooco phrases jumlado eekayaasha phrase-ku waa jumlado eeke ama words erayo ama clauses qaybaha jumladda oo ku jira list macnaha taxan commada markaa asalkeedu waa small bows weeye waa hakad yar waxayna kala soocaysaa jumlado eekayaasha phraseska iyo ereyada iyo clauses maxay qaybaha jumladda macnaha part of the sentenceska oo list ku jira kow isticmaalkeeda koobaad series of phrases jumlado eekayaal taxana ah ayaa lagu kala soocayaa tusaale on my birthday dhalashadaydii I went to the cinema waxaan tegay shaneemada waaye maxaa laga soocayaa went to the cinema ate dinner intaas ayaa ah jumladu eeke cunto ayaan cunay in restaurant and went walking lugayn baan u baxay waxaa lagu kala soocay went to the cinema ate dinner iyo went walking qaybahaasaa lagu kala soocayaa koomadii series of nouns magacyo taxanaa baa loo isticmaalaya istaba socdaa examples the meal consisted of soup cuntadii waxay ka koobneed marka soup maraqii kow iyo fish kalluunkii laba iyo chicken digaaggii saddex iyo dessert kuwa macmacaankii dessert and cove maxaa la kala soocay haddaba waxay kala soocaysaa soup iyo fish iyo chicken iyo dessert intaasay kala socday aan cove tii ugu dambaysay ee aan waxa kala socdo ku dhex jirta iyagana maxay xiriiryaha loo yaqaano conjunctionka maxay aan marka nounska magacyada ayay kala soocayaan magacyada dadka kale marka dad la tirinayo ashqaas markaasoo kalena waa lagu kala soocayaa a series of adjective sifooyin baa lagu kala soocayaa sifooyin taxana ah example she was young kow way da'yarayd sifo labaad beautiful way qurux badnayd sifo saddexaad kind naxariis bay lahayd intelligent labadana waxaa kala soocaysa conjunctionka maxay loo yaqaano and marka afartaas sifo loo kala soocay young beautiful kind and intelligent anna labada may kala soocaysaa a series of verbs ficilo maxay taxanaa linda ayaa rantuarismi igu soo orday markay soo orday maxaa ku dhacay way soo orday kow haye fel way dhacday waa ficil yelid way qaylisay waa ficil kale and fainted way suuxday imse ficil baa markaa meesha ku jira run towards me kow xaggayga u soo orday waa hakad fel way dhacday waa hakad kale yelid way qaylisay and fainted way suuxday labadan ficil ugu dambeeyayna waxaa kala soocaysa maxay an yel marka waa qaylin qofku markuu qayliyo faintna waa miyirbeelid weeye series of clauses qaybo jumladii waa lagu kala soocaya qaybihii jumladda oo taxana ah the car smashed into the wall intaas waa qayb gaarigii wuxuu ku dhacu duqeeyey gidaarkii smashed into the wall intaasi waa clause gaarigii muxuu duqeeyey muxuu ku dhacay gidaarkii flipped onto its roof gaarigii wuxuu isku rogay dhakadu ku istaagay flipped onto its roof markuu gaari gidaarka jiray waxa weeye gidaarkii markuu dhacay wuu isrogay markaa saqafka ama dhakada ayuu isku rogay kabacdi haddana slid along the road waddadii ayuu silbaday macnaha wuxuu ku cararay dhinaca ama dhakadiibuu ku cararay slid markaa waa silbasho wuu silbaday finally stopped gaarigii waxaa joojiyey against a tree maxaa joojiyey geed baa joojiyey markii koobaad smashed wuxuu ku dhacay markaa gidaarka markuu dhacay flipped onto its roof gaarigii muxuu isku rogay dhakadu ku istaago markaa isku rogay markuu isrogay muxuu haddana sameeyey slid along
the road gaarigii wuxuu sameeyay inuu silbado oo wadada sida u garab cararo isagoo cagaha taagaya ka bacdina waxa joojiyay geed baa joojiyay ardayay waxaanu maanta markaa baranay calaamadaha punctuation mark calaamadaha qoraalka waxay qurxiyaan baan qoraalka labaynu ka sii qaadanay maanta to koobaado full stop waxa kula macnaa period full stop iyo point waxa loo isticmaalaa saddex shay baan niri kow dhamaadka jumlada laba soo gaabsiga iyo dhamaadka eray intaasaynu ka qaadanay koomadana waxaynu ka qaadanay dhowr shan qaybood to koobaado jumlado kaya taxana ah talabaado ah eriyo taxana ah ta saddexaado ah sifooyin taxana ah ta afraado ah ficilo taxana ah iyo clauses qaybaha jumlada oo iyaguna taxana ama isku xiga intaasaynu soo gabagabaynaynaa kulan dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.